السلام عليكم ميل والبا joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka qodobada barnaamijka maanta aad ku daawan doontaan waxa kamid ah Chelsea oo war fiican ka heshay baacsiga ay ugu jirtay Wesley Fofana xidigu ciyaaraha Real Madrid oo loo soo bandhigay kooxda Liverpool Manchester United oo diyaar u ah inay u dhaqaaqaan xidigu ciyaaraha kooxda Chelsea barnaamijka ayaad ku daawan doontaan Darwin Nunes oo raaligelin ka bixiyay ficilkii uu sameeyay kulankii Crystal Palace barnaamijka ayaad ku daawan doontaan qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka fadlan hadaad ku cusub tahay like noo saar subscribe deesina share gareysi barnaamijkeena asxaab badan u gaara mahadsanidina inkastoo la ciyaaray laba kulan oo Premier League haddana waxa xiiso ku bilowday tartanka gool-dhalinta Premier League ee xilli ciyaareedkan inkastoo wili ay waqti hore tahay haddana waxa ismuujay xidiga badan kuwaasi oo wacdara ka dhigay labadii kulan ee la ciyaaray Premier League waxa gool-dhalinta Premier League hogaaminaya xidiga kooxda Leeds United Rodrigo Moreno kaasi oo dhaliyay 3 gool labadii kulan ee kooxdiisa ciyaartay Premier League waxa jira xidiga badan oo mina 2 gool dhaliyay labadii kulan ee la ciyaaray horyaalka Premier League kuwaasi ay kamid yihiin Erling Haaland, Gabriel Jesus iyo xidiga kale xidigaha mina 2 gool iyo xidiga hogaaminaya waxa kamid ah Rodrigo Moreno wuxuu ciyaaraa kooxda Leeds United waxa uu dhaliyay 3 gool Gabriel Jesus Arsenal 2 gool Erling Haaland waxa uu ciyaaraa kooxda Manchester City wuxuu dhaliyay 2 gool Josh Da Silva wuxuu ciyaaraa kooxda Brentford wuxuu dhaliyay 2 gool xidiga kale ee lagu magacaabo Pascal Gross Brighton wuxuu dhaliyay 2 gool Gabriel Martinelli Arsenal waxa uu dhaliyay 2 gool xidiga kale Alexander Mitrovic wuxuu ciyaaraa kooxda Fulham isna waxa uu dhaliyay 2 gool tartanka horyaalka English Premier League sanadkan labada kulan ee ugu horeeyay waxa laga waayay ciyaaranadii markii hore ku guuleysan jiray tartanka abaalmarinta tartanka gool-dhalinta horyaalka English Premier League xidiga Mohamed Salah iyo Harry Kane maadaama kooxahooda sanadkan ay ku furteen horyaalka English Premier League qaab ciyaareed liita Wesley Fofana ayaa lagu soo waramayaa inuu codsaday inuu isaga tago kooxda Leicester City xilli Chelsea ay diyaarinaysa dalab aad u sareeyo ay ku doonayaan xidigana Blues ayaa haatan laga diiday 2 dalab oo gaaraya 60 ilaa 65 milyan oo euro xilli ay doonayso in xidigan ay ku xoojiyaan daafacooda kooxda Leicester City ayaa ilaa haatan ku adkaysanaysa in xidigan aanan ku iibin doonin wax ka yara 100 milyan oo euro kooxda Leicester City ayaa markii hore sheegtay in xidiga uusan iib ahayn xagaagana laakiin waxay u muuqataa in kooxda bedeshay go'aankeeda laakiin dalbanaysa lacag aad u sareeya sida laga soo xigtay wargeyska The Guardian xidiga Fofana ayaa maamulka kooxdiisa Leicester City waxa uu gudbiyay warqadaha bixitaanka kana codsaday in ay u ogolaadaan in uu ka tago kooxda Fofana ayaa ciyaaray labadii kulan ee Leicester City ciyaartay horyaalka English Premier League iyadoo aan wax guul gaarin kadib barbardhac iyo guuldaro ay galeen Leicester City ayaa rajaynaysa in ay xidigan ay sii haystaan inkastoo kooxda Chelsea ay ku dadaalayso intuu furan yahay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda sidii ay u qaadan lahayd xidiga difaaca ciyaara kooxda Leicester City wakiilka caanka Jorge Mendes ayaa Liverpool soo bandhigay saxiixa xidiga garabka uga ciyaara kooxda Real Madrid ee Marco Asensio sida ay wararka ay sheegayaan wargeyska Mundo Deportivo ayaa sheegaya in Jorge Mendes la xiriiray Liverpool una soo bandhigay saxiixa xidiga kooxda Real Madrid Asensio ayaa la sheegaya in uu diyaar u yahay inuu isaga tago kooxda Real Madrid xagaagan si uu ugu biiro koox uu boos joogto oo ka heli karo xil ciyaareedkana
xidiga reer Spain ayaa galay sanadkii ugu dambeeyay ee heshiiskiisa Real Madrid waxaana uu ka baxay qorshaha tababare Carlo Ancelotti. Real Madrid ayaa diyaar u ah in xidigan ay iska iibiyaan xidiga reer Spain iyadoo weli diyaar u ah in ay ku iibiyaan lacag aad u yar iyadoo ay dhaawac ku weyday xidigaha Diego Jota, Roberto Firmino. Sidoo kale waxaa ganaax 3 kulan ku maqnaan doona Darwin Núñez. Liverpool ayaa ka fiirsanaysa in ay u dhaqaaqdo xidiga reer Spain. Liverpool ayaa dhawaanahan lala xiriirinaya xidiga kooxda Real Madrid Marco Asensio iyadoo ay kula tartamayeen kooxaha Arsenal iyo AC Milan, inkastoo haatan xidiga Jorge Mendes uu soo bandhigay kooxda Liverpool adeega xidigani. Manchester United ayaa lagu soo waramayaa in ay diyaar u tahay in ay u dhaqaaqdo weeraryahanka kooxda Chelsea Hakim Ziyech inta lagu guda jiro suuqa kaliibsiga ciyaartoyda ee xagaagana. xidiga 29 sano jirka ayaa sanadkii 2020 ku soo biiray Chelsea isagoo kaga soo biiray dhanka kooxda Ajax, waxaana uu kooxda Chelsea u ciyaaray 83 kulan dhammaan tartamadoo dhan isagoo dhaliyay 14 gool, 10 kalena uu caawin ka noqday. Hakim Ziyech ayaa ka soo hoosqeeyay tababaraha kooxda Manchester United Erik ten Hag markii uu joogay kooxda Ajax. Tababare Erik ten Hag ayaa maamulka United ka codsaday in ay u keenaan xidiga Hakim Ziyech bilowgii suuqan kala iibsiga, laakiin maamulka Manchester United ayaa ka diiday in xidigan ay u keenaan. Sida laga soo xigtay saxafiga Nabila, maamulka United ayaa haatan dib ugu fiirsanaya go'aankooda waxayna diyaar u yihiin in ay Chelsea kala wareegaan xidiga Ziyech. Chelsea ayaa dhankeeda diyaar u ah in ay xidigan ay ku iibiyaan lacag jaban, waxaana Erik ten Hag u arkaa xidigan mid wax weyn ku soo kordhin kara shaxdiisa kooxda United. xidiga weerarkooda ciyaara kooxda Liverpool Darwin Núñez ayaa raaligelin ka bixiyay dhaqankiisii kulankii Crystal Palace ee horyaalka English Premier League. xidiga ayaa kaarka cas loo taagay kadib markii uu madaxa ku dhuftay xidig ka tirsan kooxda Leicester City intii ay ciyaarta socotay. Liverpool ayaa 10 xidiga ku ciyaartay qaybtii dambe ee ciyaarta kadib markii Núñez loo taagay kaarka roosaha. Núñez ayaa baraha bulshada ku raaligeliyay taageerayaasha kooxdiisa waxaana uu yiri, waan ogahay in aan sameeyay talaabo qaldana, waxaan halkan u imid in aan wax barto, waan qaldamay, mar dambena uma laawanayo arrintaasi. waxaan raaligelinayaa dhammaan taageerayaasha kooxda Liverpool. Darwin Núñez ayaa seegi doona kulamada Manchester United, Newcastle iyo weliba Bournemouth kadib markii kaarka roosa loo taagay kulankii Crystal Palace. guud ahaan waa naga inta qodobada barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka.